الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصحافة ما أنت هالكن شوكته هذه أدبان الدين سلامية أنا الدين ياري وإحنا دوني أن نريك كوكوان كيدا هذا ورئيس شال بحي ووزير كورة مدحتوية محمود هاشم عبدي وشيدي مركو هورا qaybo badan buu ka hadlayay intiisa badanina waxay ahayd cay iyo aflagaado madaxweynaha ku waajahan waxba ka odhan maayo waayo markoodii horeba waa cayo cayida dee nin labaa leh mana wanaagsana nin hogaamiye ah oo doonaya inuu hogaamiye noqdo afkiisa maaha inuu caytamo markaa kama jawaabayo mana difaacayo madaxweynaha kama difaacayo ninkii yidhi unbaa taa yidhi laakiin waxaan keliya rabaa inaan xuso madaxweynuhu maxamuud goobo badan buu madaxweynaha kaga hadlay xilliyadii kambeynka wixii uu ka yidhina waa duuban yihiin waa la hayaa intaasaayna kaga filan madaxweynuhu waa kii uu maxamuud berigaa ka hadlayey isma bedelin haddeer dhan waa isagii laakiin waxaan u malaynaya isbedelku inuu maxamuud ku yimiyo malaha wuxuu jeclaa inuu arko markuu muraayadda ka arki waayey waa laga yaabaa inuu dabadeedna uu isagu isbedelay waxaase wanaagsan inuu qofku hadduu qof weyna oo mas-uula oo weliba xilal waaweyn hunguri ka hayo waxyaabaha qaarkood waa laga wanaagsan yahay taa ku dheeraan maayo arrinka xisbigu xeer buu leeyahay waxaana lagu dhaqmaa waa xeerkiisa haddii muran yimaado oo la isqabto oo xaajo la isku qabto waxaa marjaca oo loo noqdaa waa xeerka intaan ka ogahay xeerka xisbigu meel ay kaga taallo inuu madaxweynuhu marka uu ku guulaysto doorashada wareejiyo ma ogi hadday taas jirtona maxamuud de waa qodobo ilan xeerku yahay isagaa looga baahan yahy inuu yahay qodobka caynka iyo caynkaasa baa tilmaamaya inuu madaxweynuhu wareejiyo haddii bise ay tahay madaxweynuhu inuu wareejiyo waa kuwa ka lagu wareejinaya iyada lafteedu waa su-aal yaa boqran ma cid baa iska dooran miyaa loo tartamayaa waa iyo cidda lagu wareejinaya arrinkaasuna waxaan isleeyahay caddaymihiisa ayuu u baahan yahay haddii heshiis dhacay oo madaxweynaha idinkula heshiisay in xisbiga la wareejiyo goobtii uu ka dhacay iyo heshiisku cidda uu ku wareejinayey cidda uu ka maqan yahay ee uu baadida ka ahaa 3 sannadood iyada lafteedu waxay u baahan tahay inuu maxamuud caddeeyo haddii dee loo ballan qaaday annagu maanaan ogeyn cid gaar ahoo loo ballan qaaday haddii loo ballan qaaday oo cid u ballan qaaday dee inuu si fiican u muujiyo oo yidhaahdo halkaa iyo halkaasay haydo ballantaana waan qabay ciddaasuna way ballan qaaday maxamuud dee taasaa looga baahan yahay laakiin waxaan ogahay xisbigu waa dimuqraadi ummad badanina shacbiyad ballaadhanna wuu leeyahay oo 6 gobol ee waddanka ah xubintaa uu ka hadlayana waa loo tartamaa qofkii ay doortaan golayaasha u degsan xisbiga ayuun baana guddoomiyaha noqda wax intaa dhaafsiisan annagu ma ogin damaca maxamuud ku jiraana rag badan oo ku jiraabaa jira waxaanay sugayaan midhuhu marka ay qaradha yihiin ee aanay bislayn haddaad isku qaaddo afkana qadhaadh bay kuu dilaan calooshana xanuun bay kuugu dilaan waxyaabaha qaarkood xilliyay leeyihiin xilliga ay waxaasu ay diyaarka yihiin ayuunbaa ka hadalkoodu ku fiican yahay laakiin xilli aanay bislayn aniga ilama aha in maxaan ku dhahdaayey wakti badan la iskaga lumiyo maxamuud tanaasulaad badan baa loo sameeyey maxamuud markaan taarikhdaas dib ugu noqdo meeyarnimadii burco 1991kii tanaasulaad baa loo sameeyey rag badan
oo la da-ah iyo kuwo ka waaweyn oo jabhaddii ahaa oo aan maalinna ka bixin ayaa maxamuud uga tanaasulay meeyarnimadii burco baarlamaankii boorame ee 1933 maxamuud waa loo tanaasulay markuu diiday inuu hadho waxaa la tanaasuliyey ninkii ugu siyaasisanaa somalilan oo jaamac saalax axmed la odhan jiray meyrqana ku magac dheeraa siyaasaddana galay wakhti aanay dad ku jirin xogiyihii guud ee xisbiga snlna ahaa etoobiyana ilaa iyo xayli saleysa ay wada shaqeeyeen ayaa uga tanaasulay maxamuud xisbiga kulmiye markii uu doorashadii hore uu ku dhacay waxbaa isaga looga tirinayay gobolkii uu joogayna waa lagaga guulaystay markii uu xisbigaasu u dhacayna maxamuud xisbigii guulaystay ayuu u galay maxaan ku dhahdaa gacansaarna ay wada yeesheen sidaana wuu ku dhoofay 8 sannadood ee uu dagaalka xisbiga ku jira mucaaradka ahaana maxamuud waa maqlay wuxuu soo caga dhigtay goortii uu maxaan ku dhahdaa guushuba ay madaxa keentay ayuu maxamuud yimi markaana raggii 8 sannadoodba shaqaynayey ee waxaasoo xadaafiira soo maray way u tanaasuleen 7 sannadood buu wasiir ahaa oo wasiir culus ahaa sanad isagoo aan xilka ka sii maqnayn maxamuud wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqyo iyo xarakaad uu rabo kursiga guddoomiyenimada maxamuud anugu ma garanayo sida uu xaqa ugu helay inuu maalinba kursiga meesha yaalla inuu isagu uu boqranaado hankaasu rag badan buu jiraa nin walibana wakhtigeedii u eegaya rag haruu doonay baa jira anigu ismaba lahayn horta maxamuud guddoomiyuu doonaya waayo raggii haruu doonay wixii uu ka yeelay baan ogaa marka waxaan islaa guddoomiyeba dooni maayo magaca guddoomiyaaba waa ka xanaaqaayo ma doonayo laakiin raggii xaadiroo iskaba jooga inuu maanta haddana isagu horrado oo ugu horreeyo oo yidhaahdo anaa doonaya anigu taana waxaan u arkaa arrinuu maxamuud aada iyo aada ugu degdegay maxamuud ka hadli maayo anugu qabanqaabada laakiin midhun baan ka odhanayaayo maxamuud dee muu applicationna muu keenin fiina ma bixin xisbigana ma iman isma sharaxin xaq wuxuu lahaa dee inuu issharaxo golahaasuu tegi lahaa cod baa ka dhici lahaa dee ama wuu heli lahaa ama waa waayi lahaa laakiin haddaanuba iman yuu aadeynayaa uu leeyahay waa lay diiday maba u imanay sidaa meelaha kaleba loogu tartamaye kuwa uu taataabanayeyba ayuu da isaguna u tartami lahaa dabadna ama wuu heli lahaa ama wuu waayi lahaa taasna waxay la tahay inaanu maxamuud garu ahayn maxamuud xubin geeriyootay oo golaa dhexe ka baxday madaxweynuhu waxay ugu yidhi xubintaa waxaad siinaysaa maxamuud dad badan baa u taagnaa qaar xubintaas axmed aadan cali goodir buu ahaa carruurtiisii baa ku jirtay madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay in xubintaa maxamuud la siiyo madaxweynuhu wuxuu jeclaa maxamuud inuu golaha dhexe soo galo oo aan kolleyba xubin la-aan aanu maxamuud dabadda ku joogin aniga waxay la tahay inuu abaal weynna fuliyey mana ahayn maanta kii ka cadan lahaa ismalihii maxamuud ragga waa uga tacab badnaa xisbiga iyo soo bixistiisa iyo madaxweynaha soo bixistiisa toonna intaan ka ogahay hal trib baanu israacnay tribkaana waxaanu ahayn 2 jinaax oo kala socda maxamuud isagaa kambeynkiisa gaarkaa ku jiray xisbiguna kaambeynkii dee uu ku soo bixi lahaabuu waday markaa inuu xisbiga u shaqaynayey iyo inuu isagu gaar u shaqaysanayey anigu ma kala garanayn laakiin waxay una ii ahayd nin gaar u shaqaysanayay inuu yahay axdiga iyo ballanka baxa
dee uu madaxweynaha ku sheegay anigu taa madaxweynaha waxba ka odhan maayo laakiin aniga mid gaar ii soo martay oo labadeedana dhex martay ayaan ka hadlayaayo maxamuud ayaamihii ugu dambeysay ee kambeynka annaga waxoogay yeerna kala tirsanayna waa la isu kaayegayo nin baana dhex joogay waxaanu ku ballannay wixii hore jiray inaanu liqno dabadeedna aanu iminka waddo cusub iyo maxaan ku dhahdaay jawi wanaagsan oo kambeynka lagu galo inaanu ku heshiino waxaan ku idhi wixii hore anu waxba ka tirsan maayo laakiin haddaynu maanta heshiinayno waxaan rabaa anigu axdigaa ka bixi maayo inaad adigu ka bixin bil may gaadhin intii uu maxamuud uu sii hayey ciddii ay ku dhacday iyo waa xaadir oo waa wax taagan marka waxay la tahay mahmaahaha waa meeshooda laakiin aayadaha qur-aanka ah iyo axaadiista iyo siyaasadda looma soo qabsado sababta waxa weeyaan adaa wax kugu soo baydhaya mahmaahna ma noqon karto aayad qur-aan iyo xadiis mahmaah ma noqon karto aada iyo aad buu ugu dheeraaday ragga madaxweynaha ku xeeran ragga madaxweynaha ku xeeran oo taladiida oo aan cid talada waxba ka siinayn aada buu ugu dheeraaday 7 sannadood buu maxamuud fadhiya anuu ciduu la tashaday ma garanayo ragga uu tilmaamayaana qaarkood 30 sannadood bay muska dabadiisa taagnaayeen welina suuq lagama maqal marka maxamuud waxaan u arkaa dagaalka uu maanta uu iclaamiyey shacbi buu hortay wuu xoqaya shacbiga wuu xoqayaa iyana meel bay fadhiyaanoo hadduu burco tagana eriborkii burco isagu uu xidhay saxiixiisa ku xidhay baa sugayay shacbigii dhammaaye kulmiye ee ceergaabo ee 5 iyo 6 qof soo saari lahaa counsilka ee halka qof baday ayaa sugaya dadkii lacagtooda mashaariicda laii geliyay dhisa ilaa yoomana haadaa lacagtii leh dhul badan oo degaamo badana ayay ku sugayaan shacbiga maxamuud ka hadlayaa uu didinayaa daasada quluxquluxda ee uu u tumaya horta waa kuwa ismana lihi kulmiye gudihiisu ka dagaalamayaa maxamuud waa hayaan airport kale uu ka degaya waxaanaynu sugaynaa airportka kale uu ka dego ayuun baynu sugaynaa waxaan ku gebagabeynayaan kaga baxayaa madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud silaanyo 2 goor ayuu isagoo guddoomiyaha doorasho ku galay madaxweyne cidina kulama loolamin madaxweyne muuse biixi cabdina sharci iyo xeer u diidayaa ma jiro inuu 2 jeer isagoo guddoomiyaah inuu ku galo doorasho arrinkaasuna waa arrin dastuuriya oo dastuurka xisbiga ku yaala oo ku xardhan ninkii wax ka qabaana dee dastuurka qodobun baa lagu jabiyaaye qodobka jabinaya ha keeno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ballanqaadka uu sheegaya muxuu yahay waxaa jirta mar madaxweyne biixi inta la dooran ka hor la ballan qaaday guddoomiyaha lagu wareejiyay beeshiisa ama isaga ama wax saas oo kale ma jirin de horta beel wax iskuma wareejiyaan xisbigu waa xisbi qaran xisbiga qaranna cid waliba waxay u furan tahay inuu ka qayb galo tartanka inuu ka qayb galo waxaan ku dhahday guddoomiyenimada lagu dooranayo haddaan usoo noqdo su-aashaada nuxurkeeda anigu horta meel lagu ballamay oo maxamuud wax lagu siinayey lagumana siinba karayne anigu ma ogi haddiiba se ay tahay in wax laysku wareejiyo dee nidaamyaaba jiro rag baaba systemkaba kusii jireen ya dee kuwaasaaba taagnaa haddii cid wax lagu wareejinayo laakiin anigu maxamed waa un dulka boode ma arko meel wax lagu wareejiyey waxay la tahay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa uguna duceynayaa madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud silaanyo wuxuu ahaa haliyey wuxuu ahaa nin dul badan wuxuu ahaa nin hogaamiye ah wuxuu ahaa madaxweyne qaran ayuu ahaa
xukuumad wanaagsan ayuu hoggaamiyey dowladdan wax ka xumaanina ma jiraan haddiiba se ay dowladdaa wax ka xumaadeen madaxweynaha waxba kama xumaaneen raggii la shaqaynayey bay wax ka xumaadeen waxaanaana aada uga xumahay haddii wax kaga soo baydhaan legasigiisa inaanay saabeyn ku yeelan madaxweynuhu waa kii u ahaa calooshiisa iyo maxaan ku dhahdaye iyo ujeeddadiisa ayaynu raacaynaa isagana waxaan leeyahay intaa maxamuudna yuu isku ladhin madaxweynaha hore yuu isku ladhin in shaqaalaahoo wasiira buuxa halka uu ka leeyahay buugii iyo qalinkiiyo isdul saaran baanu wareejinay madaxweyne wareejiye maxamuudda madaxweynaha muuse waxba kuma wareejin laakiin madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa muuse ku wareejiyey dowladnimada marka taana yuu sheegan aad iyo aad baan idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu